shakhsigan maanta sheekadiisa ay leeyahay ama qisadiisu waxa la Stephen Thompson ninkan dhalinyarta waxa uu 2011 uu sameeyay koox shirkada xayisiiskaas oo ah kartoon waxay dibadda siiyeen hal bitcoin ayay u siiyeen lacagtii uu qaadan lahaa dabad halkii bitcoin waqtigaas qiimahaas mu taagnin haddaba ninkan odayga lacagtiisii waa uu iska ilaabay muddo aad u fog ayaa muddo dheer kadib ayaa waxa uu Stephen uu isiri bal hada lacagtii meesha halka ay ku marayso Stephen kadib maxaa dhacay Stephen kadib markii uu lacagtiisa eegay waxa bay maraysaa lacag ku dhow 300 milyan balse nasiib xumadiisa waxa uu lahaa baasaboorkii Stephen waxa loo ogoliyay kaliya inuu 8 jeer isticmaalo baasaboorka yani 8 jeer haddii uu qaldo lacagtaas way ku deysay imis ayuu isticmaalay baad maraysan asxaabteeda qaaliga ninkan dhalinyarta injineerka maanta ninkan waa milyaneer lacagtiisa dibadda ka fadhiya waa 2011 hal bitcoin oo kaliya la siiyay maanta taagan 300 milyan hadda waxa uu isticmaalay ninkan dhalinyarta 7 jeer waxaana uu haray hal mar halka mar baa lagu leeyahay haddii uu isticmaalo lacagtaas waa ku deysay bal maxaad u malaynaysaa asxaabteeda qaaliga ninkaas haddii halka markuu lacagtana waayo wax ku dhici kara kulli dadka aan muslimka haynin waa istildilaan ama waa istilaan balse ma garan karo isagu wuxuu sameyn doonaa qisada yar baan idin soo muguriyay oo dadka dunida ku nool ay in badan qaadan dhigeen dad badan baa waxay soo qoraan ninkii odayga ahaa lacagtiisii ma helay baasuurkii ma xasuustay